maasha Allah asxaabteyda qaaliga waa kana qadadii maanta aan soo kariyay baastii suuga aan caadi ahayn waaye kaalay la arka waxyaabaha aan ka sameeyay insha Allah tacaala walaalaha dhamaantiin waxay idin leeyahay soo wada dhawaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا قالي وجنالك كحرم الباء جوتين وولاشين سعدوش كوكنا مركلا يديمو فيديو كلا عصب إن شاء الله ولا لا عصب حان ليا سبسكرايب نوتا تكمل لك نفرتا ولا لا هوري وجونا حان ليا سود بعدا maanta waxaa sameysanaynaa suuga dabgo amba suuga shiidan insha Allah nala arka waxaan ka sameyno. bismillaah waxaa u baahanahay waa hilib shiidan nus kiilo hilib waa soo kariyay waana soo shiiday. waxaa kale aan haysanaa laba xabo basal si yar yar soo jarjaranay. waxaa kale haysanaa waa yaayo heel shiidan xawaash isku dardar cusbo. waxaa kale aan haysanaa waa saliid aan ku talcan lahayn kabsar iyo tuun maraq digaag xabad shiishiid nus kiilo baradhiyo karooto aan isku soo jarjaray intaas ka kooban tahay. haddana waa dalacanaynaa insha Allah nala socda. asxaabay digsiga dabka waa soo saaranay saliid yar ku soo shubanay. hadda waxaa ku darsanaynaa labadeena xabo basasha aheyd. waxaan rabaa xoogaa in basasha shiilo. basasha badan wax waliba ku isticmaalaysa aad ay u fiican tahay. insha Allah waxaa ku darsanaynaa hilibkii noo shiidnaa. hilibka si fiican u soo kariyay waana soo shiiday si fiican rabaa inaan u qalaabiyo. hilibka si fiican u qalaabi sidoo si fiican saliid ugu shiishid hilib qurux badan ku noqonaa. hadda xoogaa yar aan daboolanaynaa. insha Allah hadda waxaa ku darsan doonaa baradhadii iyo hilibka. waxaan rabaa inaan xoogaa isku shiilo. baradhada aniga si kuuskuusan u soo jarjartay waana nus kiilo iyo karooto adiga si Allah si aad jeceshahay ugu jarjaran kartaa familkaada inta uu dhan yahay qiyaastaada aad taqaanid. hadda waxaan rabaa baradhadan iyo hilibkan inaan cabaar isku soo shiilo si fiican. markaa u shiishid baradhada markaa dhimanayso hilibkana si fiican u asagan u taagnaana suu isku dheelatiranay noqonaysaa insha Allah. isku soo laabanayna maasha Allah asxaabteedii waa kana digsiga markaa ku soo laabanay hilibkii baradhadii cabaar aan soo qalaabiyay si fiican u soo shiilmeen. markaasaan soo shiishid baradhada markaa dhimanayso hilibkii markaa dhumaayo maasha Allah wax si fiican ay ku noqonay. hadda waxaa ku darsanaynaa waa yaayo. yaayadu waa soo shiiday qalaadada cabitaanka ku soo shiiday waa soo filtaray raqa yaroon soo qasana waa ku soo daray. raqayga dhadhan oo siina suugada insha Allah qof waliba qiyaasiisa yaqaano familkaada intuu la eg yahay adigana sameysan kartaa. hadda waxaa ku darsanaynaa xabadii shiishiida ahayd. hal xab ka badan ma rabo yaa shiishiidana isticmaalaa. hadda waxaa ku darsanaynaa xabad maraq digaag halka xabad dhammaan aan ku wada shubanaynaa. waxaan rabaa suuga maasha Allah oo dhadhan leh inay ka soo baxdo insha Allah. biyaha ku soo darsanaynaa oo isku soo laaban doonaa. saxaabteydana la socda.
markaan kusoo laabanay digsigeennii waa ujeedin soo u karkaraayo, biyihii dhan wuu gursaday. maasha allah digsigeyga aniga waxba kuma dhego. maasha allah suugo isku dheela tiran oo aad u macaan badan waaye. la soo tijaabiya, suugadan aad u macaan badan tahay. hadda waxaan ku darsanaynaa kabsar caleen iyo tuun aan soo tumanay. kabsarta iyo suugada aad u carfisaa. wax badan maahan, xoogaa yar. dabkana waa kasoo gaabiyey. ay dabka daa xoog uga dhigo geesaha dhan ay ka daadaadanay, badbadkeeda saaid noqonayo. digsigaas waxaa noogu saaran waa biyihii baastada. maanta baas balbalaara la karinaan fahanteen. waxaa kale ku darsanaynaa cusbo xoogaa yar oon badnayn. waxaa kale ku darsanaynaa xawaashiyo isku dardar ah gasac noogu jiro. waa xawaashiyo badan aan isku soo dardaray, filfil, xawaashi dhuudhuub, xawaashi buurbuur, yaa kaal iska arag ah. intaanaan rabaa hadeer inay isku soo huurto xoogaa. hadeer waa daboolanaynaa. asxaabteyda nala socda. fiidiyogan haddaad ka heshay like saar, asxaabtaadan u sheer gareey, commentigana noo dhaaf. insha allah isku soo noqonayna asxaabteyda. cabbaara kasoo maqnaan doonaa. asxaabteyda cabbaar kadib waa kana suugadeeni waa kusoo laabanay. waa ujeedin biyihi dhammaanna way wada gursatay. maasha allah suuga aan caadi ahayn waa aad u qurux badan tahay, way macaan badan tahay. insha allah nala tijaabiya. insha allah hadda saanay diyaar ku tahay suugada. waxaan ku darsanaynaa xoogaa yar oo heel ah. heelka wax badan isticmaali doona, xoogaa yar waayo raashinka heelka wuu maciya, wuu carfiyaa. haddana waxaan haysan waa laba xabo barbarooni oo si yar yar soo jarjaranay. basal ma isticmaali doono waayo kuwa waa laba xabo ku dalacay. hadda labadan xabo barbarooni bas xoogaa yar lagu huurinaa. khalaas suugadeeni saas ayay diyaar ku tahay. baastadan waa soo karsanaynaa. baastada isticmaali doono waa baasta balbalaar. baastadan isticmaali doono waa tanaa. aaday u macaan badan tahay baastadan. baastadan aan karsanaynaa. markaa karsanay kadib waa isku soo laabanayna. biyaheedii waa kaa dabka noo saaran yahay. insha allah nala socda. maasha allah qadadeeni maanta waa tanaa. suugadii, baastadii, qudaartii, wixii dhan diyaar waa fahanteen. sabiibka xitaa waa soo diyaariyey. qofkii jecel isticmaalayo, qofkaan jecleen wuu iska dhaafi karaa. insha allah qadadeeni maanta saanay diyaar ku tahay. dhammaantiin waxaa idin leeyahay jimca mubaarak meel walbo aad joogtiin. mooska xitaa diyaar waa maanta. insha allah fiidiyogan haddaad ka heshay like saar, asxaabtaadana la wadaag. waxaad fariin noo wadana comment noogu reeb. meel walbo aad joogtiin nabadii caafimaad idin rajeynaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.